السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولها قلبك يا قلوبتك حردنا أدبانيني سلامينا وقتي آدو وناكسن يا نور القضح بدن باندين رجينينا يا عافماد إن يدون كل ما نيصوب بشي بركة سيدنا رمضان تانية همبلية مناسبة مالين تعيدنا وإنوطن بين إن شاء الله مركا ينوقبكو قادنو ayaynu iskugu taaniyadeynaynaa iskugu hambalyayn doonaa muuqaalkan waxaynu ku eegaynaa xulbada iyo caanaha faa'iidooyinka ay u leeyihiin qofku inuu ku iftaaro ama uu ku afuro maalinta ugu horeysa ee ciidda oo isticmaalo sida aynu ogsoonahay qofku markuu maalintii oo dhan soo soomanaa ama bil soo soomanaa xilliyada qaar waxa dhacda marka aynu dub u halaacsano dhaqankeena Soomaaliyeed waxaynu inta badan la diyaariyaa oo bulshadeenu guryaha ay ku diyaarsadaan waxyaabo badan oo dufan iyo saliid leh taasina waxa ay keentaa mararka qaar in caloosheena ay ku kaysanto waxyaabo markaa substances aan markaa fiicnayn ama markaa la oran karo waa wasaqo caloosha ay mararka qaar ku kaysami kartaa arintaasi waxa dhacda bisha barakaysan marka ay dhamaato ee noloshii caadiga ahayd la galaayo waxa inta badan dhaca isbedel dhinaca caloosha ku yimaada dadka qaar baa markaa cadilma caloosha ay aad u xanuuntaa isla markaa mushkilado badan ay kaga dhacaan iyadoo ay fiican tahay qofku maadaama oo sontankii Ramadaan soo soomay inuu iska nafaxaad badan qaato oo markaa wuxuu qaadan karayo qaato oo farxo oo wuxuu isticmaali karayo uu isticmaalo haddana dabcan waxa kale muhiimadeeda leh inaynu bulsho ahaan ogaano waxay noo keenaya inaynu ka taxadarno hadaba kullayba hadii aad maalinta aad jeceshahay inaad naftaada aad wax la ogaato fiican oo maalinta nafta aad ku raali galiso kuwan inaad xasuusnaato isku day ma xasuusto gaygeeni Soomaaliyeed imika in aad looga sameeyo laakiin waxa jiraya wadamada siday u badan yihiin xulbadu sida sharaabka caadiga ee loo cabitaanada caadiga lagu iibiyo meelaha inta badan macmacaanlayaasha ayaa lagu iibiyaa adduunka marka dadka qaar dadka inta badan dhinaca heerbalka iyo faa'iidada xulbada yaqaana way cabaan waxa ay ka hortagtaa cilada iyo qofka in caloosha ciladi kaga dhacdo iyo inuu ku xanuunsado waxa kale oo ay ka qayb qaadataa socodsiinta calooshu inay qofku u socoto oo hadii markaa calooshiisa ay ku kaysantay waxyaabo markaa dhibaya ama aan dabada u soo dhaafin inay soo dhaafiso taasina ay keento qofku inuu cilad ka fogaado calool istaag ka fogaado calool xanuun ka fogaado dhibaato ka fogaado haddaba hadii aad taa heli karto oo meelo lagu diyaariyo aad heli karto adiga oo markaa suuqa jooga ama xilliyada dabaaldega iyo fantasiyaha ku jirto waad qaadan kartaa waana isticmaali kartaa hadii aanay taa markaa la helayn oo aanay meelahaas lagu diyaariyo xulbadu aanay diyaar ahayna qofku soo iibsan karaa oo guriga ayuu dhigan karaa oo qaabkaas u samaysan karaa cabitaan ahaan kadibna waxa uu kaga hortagi karaa cilada isbedelka caloosha ku dhacaysa inuu kaga hortago khashinka calooshana inuu ku sii daayo calooshana inuu ku socodsiiyo saadabeetana nafaxaad iyo caafimaad iyo deganaan iyo farxadda maalinta iyo maalmaha kale ka dambeeyaba uu ku qaato caanaha hadaynu nimaano caanaha dabcan kosob aad u wanaagsan bay ka haysanaa waqtiyo badan baa waxaynu istu taagnay si scientifically waxay aadka ugu fiican yihiin waxaynu ka hadalnay caano fureesha oo dabiici ah hadii aad hesho inay noloshaada iyo caafimaadkaaga meel aad u qurux badan geynayaan isla markaa position wanaagsan iyo heer fiican caafimaadkaaga uu ku tagaya ayaynu tilmaam inay ka hortag yihiin inay daawan yihiin inay la tacaaris yihiin inay caafimaadkiyo soconaya yihiin waxa shardi iyo shuruud u ah caanaha qofku isticmaalaya inay fresh yihiin inay dabiici yihiin inay saafi yihiin oo ay saaf yihiin oo ay ka fog yihiin nooleeyna qabatin inuu ku jiro isla markaa inay stage-da ay maraan caanuhu inay stage-ka ugu horeeya dhayda la yiraahdo ama fresh-ka leeyahay ku jiraan caanuhu marka ay qaab ka yihiin waxa qofku uu ka dhaxlaa awood inuu ka helo sayno ogsoonahay bisha barakaysan ee Ramadaan marka qofku soo soomana waxa laga yaabaa ibn aadam baynu naho inuu xoogaa yaroo tabcaana ama daciif u mararka qaar dareemo inkastoo aanay dadku isku dabaqad ahayn oo aan isku nolol lahayn
oo laga yaabo qofka dadka qaar inay bisha Ramadaan ku naaxaanba ama lagaba yaabo inay si awoodeystaanba haddana waxaynu ka hadlaynaa marka dabcan aynu muuqaal ka hadlayno waxaynu ku base gareynaynaa middle stage-ka ama middle class-ka waa dabaqada dhexe ee bulshada qofku sida caadiga ah marka suxuurta aanu isku badin isla markaa maalintii iyo habeenkiina wax yar iska qaato awoodiisa waxa laga yaabaa inay wax yar hoos u dhacdo caanuhu waxay ka qayb qaadanayaan soo celinta awood iyo tamarta awoodda iyo caafimaadka qofka waxa kale oo dabcan aynu xilli kasta isxasuusinaynaa waqtigan lagu guda jiro iyo xaaladdan ay ku jira adduunka waqtigan aynu galnay difaaca iyo awoodda inaynu aad u ilaalino waa muhiim noolahan imika weerarka baan inagu soo qaaday ee adduunka oo dhan ka degay ee dhirbaaxada baan la dhacaya waxa uu u baahan yahay gaashaan waxa uu u baahan yahay garab waxa uu u baahan yahay in la iska difaaco taasina gaashaanka ugu weyn iyo garabka ugu weyn iyo ciidanka ugu weyn aynu haysanaa waa immune systemkeena waa difaaca jirka markaa in la ilaaliyo waa muhiim goobaha lagu ilaalinayo waxa ka mid ah caanaha waxa ka mid ah qudaarta cabitaanada freshka inay dadku waxa ay aad u isticmaalaan liimaha oo faytamiinkoodii kala duwanaan laga helayo haddii qofku heli karo hilibka cad iyo hilibka cas dabcan inuu aad iskugu farabadiyo ma aha dhibaatooyin buu keeni karaa laakiin hilibka cad inuu aad u qaato oo qudaarta aad u qaato wariya marka laga hadlayo hilbaha qudaarta iyo caanaha ayaa priority-ga koowaad la geliyaa marka nutritional level-ka aynu ka sheekaynayno haddaba sidaa laajigeed caanuhu awoodiina waa soo celinayaan calooshiina cilada ayay ka ilaalinayaan khashinkii iyo saliiddii laga yaabo inaad ku afuri jirtay iyo waxyaabihiina way ka saarayaan jawiga ayay isku kaa xidhiidhinayaan labadaa inay bulshadu aad u eegto oo runtii ay dhugta ku hayso ayuu muuqaalkeenu ku dahaaran yahay ama runtii uu culayska saaraya oo aynu u soo jeedinaynaa waxaan idin rajaynaynaa goob kasta iyo meel kasta iyo xilli kasta iyo waqti kastaba ina farxad iyo caafimaad aad ku noolaataan oo aad ku waartaan waxaa su-aale qabtaan noo soo sheega insha allah waa idinka soo jawaabaynaa sida ugu macquulsan ugu dhaqsaha badan insha allah fi amaanina ayaanu idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu